السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Arsenal oo war fiican ka heshay bacsiga ay ugu jirto ciyaaryahan Christian Mosquera Guardiola oo Barcelona ka doonaya xidig lama filaana Barca oo Chelsea u sheegtay qiimaha lagu heli karo Marca Casado Real Madrid iyo Alonso oo go'aan midaysan ka qaatay mustaqbalka ciyaaryahan Rodrigo inuu ku bilownay Arsenal ayaa laga yaabaa inay war fiican ka hesho bacsiga ay ugu jirto daafaca dhexe ee Valencia Christian Mosquera Gunners ayaa suuqa ugu jirtay inay xoojiso daafaceeda waxayna durba u dhaqaaqday inay heshiis la gaarto ciyaaryahanka heerka caalami dalka Spain ee Mosquera inkastoo ay Arsenal laga diiday dalabkii furitaanka ahaa ay ku gudbisay Mosquera Arsenal ayaa weli xiiseynaysa iyadoo ku jirta wararka sheegaya in dalab labaad ay diyaarinayso waxa la aaminsan yahay in Arsenal ay ku rajaweyn tahay inay heshiis la gaarto Valencia si ay u hesho ciyaaryahanka intaasi waxa dheer warbixinta ayaa sheegaysa in Mosquera mar horeba uu doonayo in heshiisu markaas uu saxiixo Valencia si kastaba ha ahaatee xiisaha Gunners ayaa keentay inuu iska diido inuu heshiis cusub u saxiixo Valencia heshiiska cusub iyadoo la aaminsan yahay in xidigu haatanba heshiis shakhsi ah la gaaray Gunners natiijo ahaan Valencia ayaa laga yaabaa inay hadda aqbasho xidigani bixitaankiisa sida uu sheegay wargeyska Fijs tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa si weyn u xiiseynaya laacibka da'da yar ee Barcelona Fermin Lopez inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga Guardiola oo xilli ciyaareedkan la daalaa-dhacayay abaarta goob la'aanta ayaa haatan doonaya in isbedel weyn uu ku sameeyo kooxda Etihad Stadium warbixintu waxay sheegtay in Guardiola uu maamulka kooxda u sheegay in Fermin uu ka mid yahay bartilmaameedyadiisa ugu muhiimsan xagaaga ciyaaryahanka 21 sano jirka qadka dhexe ka ciyaara ayaa soo jeetay indhaha kooxo badan sabab la xiriira rabitaankiisa iyo tamartiisa halabuurkiisa iyo kartida uu ku leeyahay dhismaha qadka dhexe sifooyinka uu Guardiola ku arko kuwa ugu muhiimsan waa dibudhiska kooxda qadkeeda dhexe kadib bixitaankii Kevin De Bruyne Guardiola wuxuu Fermin u arkaa beddelkiisa mustaqbalka fog isla markaana uu aaminsan yahay inuu noqon karo xubin muhiim ka ah wajiga cusub ee kooxda Etihad Stadium isla wararka Barca ayaynu ku jirnahay Barcelona ayaa Marca Casado dul dhigtay lacag 50 milyan oo ay ku fasaxayso ciyaaryahanka sida uu waramayo Diario Sport Casado oo kamid ah ciyaartooyda fursadda yar ka haysta safka koowaad ee Barca ayaa hadda loo arkaa laacib tayo sare leh iyadoo lagu tilmaamay mid mustaqbal weyn leh si kasta ha ahaatee Barcelona ma awoodo inay damaanad qaado waqti uu sii joogayo ugu ciyaaraya ciyaaryahanka iyadoo booskiisa uu yahay mid buuxa oo ay ciyaartooy badan ay isdaba joogaan sidaas daraadeed waxa ay diyaar u tahay in dhageysato dalabaad kasta oo soo gaaraya ku dhawaad 50 milyan haddii kooxi ay xiiseynayso ciyaaryahanka maamulka Barcelona waxay aaminsan yihiin in Casado qiimo yareyn ciyaartooyda qadka dhexe ee Chelsea oo ku bixiyeen lacag la mid ah lacagta ay ku soo qaateen ciyaartooy badan oo qadka dhexe haatan uga tirsan kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayna aaminsan yihiin maamulka Barca inuusan ka lacag yareyn wararku waxay tilmaamayaan in haddii ay Chelsea ama kooxo kale intaba ay diyaar u yihiin inay iska bixiyaan 50 milyan ciyaaryahankan ay qaataan Real Madrid iyo tababaraheeda Xavi Alonso ayaa si rasmi ah go'aan uga gaaray suurtagalnimada lagu iibin karo weeraryahanka Brazil Rodrigo Goes haddii la helo dalab ku haboon labada dhinac ayaa iska gartay inaysan kooxda ka hor istaagi doonin bixitaanka ciyaaryahanka haddii heshiis sax ah markaasi la helo xaaladda Rodrigo ayaa cirku isku shareertay kadib markii aabihiisu si cad uga hadlay dareenka qoyskiisa ee ku aadan waqtiyarada ciyaarista ciyaaryahankiisa isagoo si gaar ah u xusay in tartan adag uu kula jiro Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham uuna sabab u yahay in Rodrigo mararka qaarkood kursiga kaydka la fariisiyo hadallada aabaha Rodrigo ayaa si toos ah saameyn ugu yeeshay qayb ka mid ah maamulka kooxda dhinaca kale qaab ciyaareed xumida Rodrigo kulamadii ugu dambeeyay ayaa si hurisay arrinka taasi oo sababtay in kooxda Real Madrid ay tixgeliso suurtagalnimada iibkiisa Rodrigo 23 sano jir ayaa qayb muhiim ah ka ah weerarka Los Blancos sanadadii ugu dambeeyay balse hadda mustaqbalkiisa wuxuu u muuqdaa mid aan la hubin xilli kooxda ay dib u dhis u wado safkeeda weerarka Real Madrid